هذا واحد عدمك مجاهرين قف لبي قف حافظ دتكي إن لو شيكي وحال عمان نسمي شاكل وإصلا لافت قبائل المصائب وحاول السوشيال ميديا لا فدية أو حاران أدي وحال يراد وحال بلاي برنك مو برنك مالناي بركة الله كقاله بين وحان لو بهنين وإلهي جو الله النبو حمان لسميه تفاخر أركاي عاصبان أهي إلهي عدو جيسان أهي أو موقتا أمان السوشيال ميديا نلطان أو حدا وانا اسمك لباتن كن بقول كن ولا ليالو هل إيكا لك عيو ليه هالمر بس ما لنكس واحد يعيشين كينا عن لصوف ديسان دوناي إيكا لك عيو ليه حتى مقعيض ولا كلي قانا صومان يا قوعان هذا كوة السوشيال ميديا كجرو ولا يقانا مقعيض ولا حفظيسية هل لو قرنا صومان إيكا لك عيو وأذينا أسوم لينين inaad ka badbaadaysid waayo markuu xumaan soo dhigo soo ma daawatid waa ku jirtaa baantu sheega aad daawanaysid waa ku jirtaa waayo haduusan boqolkan gaari leen waa ka harlaa Soomaan baantu culays ay leedahay mar waliba wax xun inuu sameeyo oo xumaan sameeyo gabar iyo wiil iyo waxa weeyaan ilaahay wax uu raali ka ahayn adaa daawanayo hadana salaad al-fajr waa soo tukatay duhur waa soo tukatay casr waa soo tukatay ninkaas waxa laga yaabaa hadii 1 milyan ay daawadaan 1 milyan qof salaadaha ay tukadeen oo wala qeybsanaa Soomaa waa ajirkii waad kula jirtaa xumaanta la daawanaysa المهم walaalyaal waxaan la dardaarmaa marka dadka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala calanan ku caasinay oo xumaanta banaanka la taagan waxa uu dardaarmi lahaa in Ilaahay ka cabsadaan نبي مالين وحال الصبر سياتي سلام جنازه لابد وجبت وده محل شاهد وحويان من وناغا لو شيغي وجبت له الجنه من حمانا لو شيغي وجبت له النار markaas waxay noqotay nabi عليه الصلاه والسلام ودا عليه صلى الله عليه وسلم محل شاهدك انتم شهداء الله في الارض idinka waxa tihiin marqaatihi ilaahay adduunkan joogay waxaan kalan baaqo diraa أن أمام الله أن وحارب أن وحوي هذا عذر دار أنا أسمي استعوبها أنا وحويان قبلها إسقاوين أيوم قبل أيضا إسقاوين حجاب كذا حرانا بعد كذا علماء قالوا إليهم وعورة أنا إسقاويسو حمان سميسو وبنانك لسو استاكتو وحويان وارنتي نصيب حموي وأرن آديات وفولحم قبله إلهي كعبصنا وحمان تاسل بناك لا تاغانيا كجوغا ور الهي و idin jeeda subhanahu wa ta'ala ogow dadka waxa weeyaan gabdhahaas intaas dadka ay fi daawanayaan oo quruxdooda soo bandhigo dib hadaad u wareysatid ama aad fiirisid kulligood waxa ku dhacayo cudurro aanan la garanayn meel ay ka imaadeen way wada xanuunsan yihiin مصائبها كوضا دعو مستكستا سيريستو إلهي سبحانه وتعالى لطفك سيكون حجرين كل حجران وحبها أركن مصائبها هيستو مركا الخبيثات للخبيثين مع الأسف الشديد وحيوان آد لوغنا حاكمة دا نين إناغو برانكسكو سمينا قواد حاسكي سوقاون وماشي أن وحاو اسكو توسنين قريقي جوكتو إنو خياميو كأوهيسيو كليا إنو هلو وحدا عاي مركا أنا حمانا لا قدر الله حمانا سمي وحا إداوة بقول كون يقاري بقول كي يكون لعقان كهلي لعقت مركان هلو محان سمينا لعق حرام وصومان لبيانا يكوي ماتي لعقت محان سمينا أول أنا عناي ورت صنع عنويا أول أنا عناي كو قاري أنقصوا على أنقصوا قدنا الله وحويان gabadha xaaskaygan siina 3 ilmihi aan dhalayaan siin doona 4 kulligood waa wada sameeyay soma wiilkii ilmihiga oo isku diray xaaskii oo isku diray aniga gaari oo xaraana wata xaraana wax ku soo helay ana cunay gurigii dhan waa wada sameeysan yahay gurigaago de mas galay hada aragto adoo adbaba galay waxa aragtay bas guriga ku soo ordaayo habeenkaas masaxana adoo maska soo bixin ina saxta malaga yaaba waa ma Soomaan
haddii maskii jeebka ku keentid ka war waayo cadowga ugu weyn ku soo maraa waxa weeyaan in ilmahaada ay cadow kugu noqdaan wax ka xun ma laha cunuga markuu cadow kugu noqdo meelaa seexanaysu yaqaanaa sariirtaad seexanaysu yaqaanaa guriga meesha fadhisu yaqaanaa cunugaaga hadduu noqdo mid ku raadsanayo oo kula dagaalsan dee maxaad intaad ku nasanaysaa marka adduunya nasasho kuma taalo qarankiyaa dhalay waa kaan ka soo hadalay oo nabigeenna wakiilaha sal alla alay wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta gaalada shayaadiinta jinka ah iyo kuwa insiga ah way isu waxyoonayaan ayagaa isla shaqaynaya sida qur-aanku inoo sheegay barnaamijta shayaadiinta jinku soo diyaariyaan waxay u gudbinayaan kuwa la shaqeeya ee bini aadamka ee gaalada iyo munaafiqiinta ah ayaantan dambe waxaa aad u soo kordhay wax barankii la yidhahdo ustaadi dabaan inaad aragta ma garanayo marka barankii muxuu yahay horta inaad tafsiir yar naga siisid halkee inooga yimid yacni ustaadi muqdisho aad looga isticmaalaa meel kastana hadda caadi ka noqotay in laba qof oo soo heshiisay oo isbursanaysa ama koox isbursanaysa wadadii adoo socod ay ka hor yimaadaan budad iyo faasas wata ay qofkaas ay ka naxshaan ayagoo kaftan iyo sheeko kale ama dadka inay ka qosliyaan udan leh keliya ama nin xaaskii isku sameeyaan macnaha xaaskii ay qarinaysa kaamirada meel ku qarinayso ama nin xaaskii uu kaamirada ka qarinayo kabacdina xoogaa yar oo qalqaldan uu samaynayo wuxuu leeyahay bal waxaan ogaanayaa xaaskii ficilkay samayn doontay bal ila arka inta hore soo duubaya kabacdina wuxuu leeyahay xaaskii bal wixii ficil samayso aragno marka bulshadii in badan barangi meel kasta furtay hadda barangi un baa yaala marka ustaad arrinkaa ka waran barankiyaa dhalay baranki shaydaan baa dhalay waa garti maalin walbana magac cusub iyo barnaamij cusub buu bini aadamka u keenaya naam gaaladan waxyaalahan soo alifayay waa shayaadiinul insi waay soo ma shayaadiinul insi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhruf alqowl gaalada shayaadiinta jinka ah iyo kuwa insiga ah way isu waxyoonayaan ayagaa isla shaqaynaya sida qur-aanku inoo sheegay barnaamijta shayaadiinta jinku soo diyaariyaan waxay u gudbinayaan kuwa la shaqeeya ee bini aadamka ee gaalada iyo munaafiqiinta ah iyagaasina bini aadamkii kale u gudbinayaan waxyaalahani marka wax duruqdii shaydaanko lagu lumay waaye soo garan haddii maadsi loola jeedo masaladu waxaan ila qoson ay yidhaahdaan ay tahayna ayadana waxa weeyaan muxuu ahay waxaa ku jira fuxshi badan baa ku jira haddii ay waxyaalahan kale ka sheekaynaysta uu yahayna waa kaan ka soo hadalay oo nabigeenna wakiilaha sal alla alay wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta yani murtida ambiyadii hore laga soo gaadhay ee la kala dhaxlay waxaa ka mid a haddaadan xishoonayn wax kasta samee waxaad doonto samee ruux hadduusan xishood lahayn oo damiir lahayn wax kasta waa ka suroobaan adiga ama fal ku muuji ama hadal ku muuji masalada labaadi waxa weeye xumaanta iyo dhaqan xumadu in bannaanka loola soo baxo miidiyaha la geliyo social mediaha lala wadaago bulshada la hor keeno iyo markay qarsoontahay way kala weynta nabigeenu wuxuu sal alay wasalam muxuu ahaa kullu ummati mucaafa ila almujaahiruun ummaddaydoo dhan waa cafi buu nabigu sal alay wasallam ilaahay waa caafinaya ilaa kuwa xumaanta la jahra mooye xumaanta markaad bannaanka ula soo baxdo ood miidiyaha soo geliso ood ummadda la wadaagto inta ay gaadhay inta ku dambaabtay fuxshigeedu waa ballaadhan yahay dembigeeduna waa ballaadhan yahay ma garata inaan lagu cafininna way u badantaho naar aad ku gasho marka waxyaalaha noocaasoo kale waa dhaqan xumada bulshada kusoo kordhay loona baahan yahay in aad looga taxadiro lana dagaalamo bulshada culimada aqoon-yahanka yani waxa weeye waxyaalaha bulshada dhaqan guurinta ku ah si wada jir in looga hortagay u baahan tahay runtii soomaalay baraankigii meel baas buu inala maraya baryahan dambe waxaa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda ku soo badanayay wax loo yaqaano baraanki dhallinyarta iyo da'yarta rag iyo dumar oo meelaha waxaad ku arkaysaa iyadoo la leeyahay hebel oo hebel baraanki ku qabtay ama hebel oo hebel ka yaabsaday ama hebel oo hebel ka naxsaday laakiin waxaad isweydiisaa inanka iyo inanta duubaya baraankigow baraankigaaga aad duubayso diinta ma u bandhigta waxaa isweydiin leh baraankiyada hadda dhallinyartu ay duubayso ee la soo gelinaya baraha bulshada maxaa ku jira ee diinta khilaafsan waxaanu leenahay waxaa ku jira
intaasoo qodob ama arin oo diinta ka soo horjeeda oo inaan halkan ku soo koobi karayn. laakiin tusaale haddaynu soo qaadanno waxaa ku jira oo diinta khilaafsan badina ay ka midaysan yihiin in qofkii muslimka ahaa la argagax gelinayo, laga naxsanayo. arrinka noocaasina diintu waa diiday. xadiidka abi daa'uud uu soo saarayo culimmada qaarna ay leeyihiin waa sugan yahay. koox saxaabada ka midii waxay warinaysaa iyagoo nebiga sala allahu calayhi wasalam la socda maalin maalmaha ka mid a in nin saxaabada ka midihii uu seexday iyadoo qacantiisana xadhig uu sitay uu ku jiro. nin saxaabada ka mida soo kacay si xadhigga qacantiisa uu uga saaro oo u qariyo ama ula kaftamo. dabeetana ninkii hurday baa booday isagoo naxsan. markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima. qof muslima uma bannaana inuu argagax geliyo walaalkiisa muslimka ah. sidaa darteed waxaa ku jira baraankiyada hadda la wadwado dadkiioo la argagax gelinayo, haba kala duwanaato qaabka loo argagax gelinayo ee looga nixinayo. waxaa ka mid a waxyaabaha mukhaalafaadka ee baraankiyada dhallinyartu ay duubayso ku sugan in gabdhihii Soomaaliyeed ee quruxda badnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaha iyo sharafta uu siiyey kuna waajibiyey inay xijaabtaan oo jidhkooda ay ka asturaan ajaanibta, ay iyagoo qaawan ama maryo fiican aan qabin, shalmad yar, masar yar iyo wixii la mida xidhan ay iska duubayaan, kamarada iska duubayaan ama laga duubayo, dabeetana lasoo dhex dhigayo khalaa'iq aan tiradooda lasoo koobi karayn, dabeetana qof waliba uu fiirsanayo oo daawanayo. arrinka noocaasiina waa arrin diinteennana aan ku bannaanayn, dhaqankeennana aan ku bannaanayn. walidaalika baa xadiidka cabdillaahi bni cumar wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi almar'atu cawra, gabadhu waa cawro weey. cawrana waxaa laysku ogaa in la asturo oo waxa weeyaan la qariyo oo dadka iyo bulshada aan waxa weeyaan lasoo dhex dhigin. waxyaabaha khilaafsan diinta ee baraankiyada ku jira aad arkaysa waxaa ka mid a in dhalinyar ajaanib kale ah oo rag iyo dumar ah ay isdhexgelayaan oo ikhtilaad u dhacayo oo jidhkoodu mararka qaarkood u istaabanayo. nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyطin min xadiidin khayru lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lah. midkiin in maxaadh xadiida madaxa lagaga mudo iyo in gabadh ajnabi ka ah uu taabto oo jidhkoodu ay istaabtaan, labadaa arrin waxaa u khayr badan in maxaadhka madaxa lagaga mudo ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay. sidaa darteed waxa aad arkaysaa in mararka qaarkood ay dhallinyartu iska soo duubayaan iyagoo la faraka ciyaarayo oo jidhkii istaabanayo o isgaadhayo iyadoo ajaanibka la kala yahay oo aan waxa weeyaan maxram laysu ahayn. waxaa ka mid a waxyaabaha lala yaabo ee laga yiqiiqsoodo ee dhaqanna aynaanu lahayn, diintuna aanay ogolayn, in ay iska soo duubayaan dhallinyartii iyadoo ay iskorkorayaan oo dusha laysaga baxayo oo yacni hawshii dhex mari lahayd nin iyo gabadhiis waxa weeyaan oo meel qarsoodiya ku dhex mari lahayd bulshada lala soo wadaagaya wax u eeg oo waxa weeyaan lasoo dhex dhigay. waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a ee maalin dhaweyd aan ku arkayay Facebook iyo baraha bulshada in gabadh da'deedu 20 aan ku qiyaasay intay mikrafoon qaadatay, cid kamarad ka duubtana ay diyaarsatay, suuqa dhexdiisa ay istaagtay oo dabeetana ay qabanayso odayaal waaweyn oo laga yaabo aabbaheed inay ka weyn yihiin, dabeetana ay leedahay waxaa tahay aabbahay baa tahay, aabbahay ayaa tahay. miyaanay ka baqayn gabadhaas iyo kuwa noocaas oo kale samaynaya in ay soo gudagalaan xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay man iddacaa ilaa gayri abiihi وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. qofkii sheegta aabihii cidaan ahayn iyadoo uu og yahay inaanu qofkaasi aabihii ahayn, jannadu waa ka xaaraan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi. waxaa laga yaabaa
in dhallinyarta qaarkood oo baraankiyada noocaasa duubaya oo bulshada la wadaagaya ay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin kaftan baanu uga jeednaa, bulshadii inaanu ka qoslinaanu doonayna. waxaynu kuwaa leenahay war kaftanku xad buu leeyahay aan la dhaafin oo aan laga tallaabin. waxaanay tilmaamaan almizaaxu fi lkalaam walafcaal طabcan mithlu almilxi fi الطacaam, yacni kaftanku hadallada dhexdooda lagu kaftamayo, ficilada dhexdooda lagu kaftamayo wuxuu la mid yahay milixda lagu darayo cuntada. haddii milixdii cuntadii laga badiyo cuntadii way fasahaadaysaa. haddii kaftankii la kaftamayay hadalka dhexdiisa iyo ficilka dhexdiisa la badiyana waxay noqonaysaa in hadalladii iyo ficiladii ay waxa weeyaan fasahaadaan oo wax fool xuni ay ka soo baxaan. waxay shareecadu tilmaantay, nebigu sala allahu calayhi wasalam hoog wuxuu u sugnaaday qofka dadka u sheekaynaya dabeetana been sheegaya si waxa weeyaan uu uga qosliyo. haddii marka ujeeddadaadu ay tahay inaad dadka ka qosliso, ku soo jiidato, lagugu barto, dabeetana sidaas darteed aad ficilada noocaas ee muxaramka u samaynayso, hooggaas nebigu uu tilmaamay ayaad waxa weeyaan soo gudagelaysa. waxaynu ku soo gebagabaynaynaa anigoon dheeraynaynin, war Soomaaliy like raadinta iyo share raadinta iyo comment raadinta iyo subscribe raadintu yaanay rabbigeen inaga fogeyn. baryahan waxaa aad u soo batay wax loo yaqaano prank oo social media-ha aad ugu fara badan, xaqiiqadiisuna ay tahay qofku inuu matalo shay aan xaqiiqo ahayn, hadhowna uu idhaahdo waxa aan sameeyey prank buu ahaa ama xaqiiqo mu ahayn. ilaa ay gaadhay in ragga qaarkood ay matalaan intay dumar u yeedhaan ay idhaahdaan waa xaasaskaygii, markii dambena uu idhaahdo waa prank, xaqiiqo may ahaynoo ismaanaan qabin. bisha ramadaanna waxaa jirta buu yidhi oo aad social media-ha ugu jirta in gaar ahaan waddamada dibadda dad ka mid ahi intay soo istaagaan shaariciyada ay dadka muslimiinta ee shaarica maraya qof ka mida ay u yeedhayaan, ay odhanayaan hadiyad baanu ku siinaynaa, sida tusaale ahaan mobile iPhone oo noocii ugu dambeeyey ah ayaanu ku siinaynaa haddii aad soomkaagaasi jabiso. haddii uu qofku diido inuu soomkiisii jabiyo oo uu idhaahdo may soomkaygaan haysanayaa, kuwii wax duubayay mid ka mid ah ayaa meeshii soo istaagaya oo odhanaya maxaa jira, hawshaasaa jirto soomka haddaad jabiso waxaanu ku siinaynaa hadiyaddaasi, ayuu kii kale ku odhanayaa. kadibna wuxuu odhanayaa anigaa diyaar u ahoo soomka jabinaya ee may siinaysaa. ujeeddada aanu ka leenay waxa weeyaan bay idhaahdeen inaanu ogaano dadkaas meesha maraya iimaankooga iyo inay soomkooga arrinta adduunya ay u jabinayaan. marka bal arrintaasi xukumkeedu muxuu noqonayaa? baaraanka waxaa lagu sheegaa waa nooc misaaxa ama kaftana, kolay sana lagu fahamsanahay, carabtuna malaa maqlab bay idhaahdaan iyo maqaalib. kaftanku asal ahaan waa bannaan yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jiray. saxaabaduna waxay idhaahdeen inaka la tudaacibuna ya rasuula allah, rasuulka ila waad nala kaftantaa. faqaala nacam lakin laa aqulu ilaa xaq, waa idinla kaftamaa laakiin xaq waxaan ahayn ma idhaahdo, yacnaa run iyo wax xaq oan baadil ahayn ayuun baan ku kaftamaa oo aan ku hadla. marka kaftanku dawaabid, axkaam iyo qawaacid iyo xuduud buu ku leeyahay fi shariica alislaamiya. horta been laguma kaftami karo. dadka qaarkood dee been bay sheegayaan, ninka intuu dumar meel soo fadhiisiyo odhanaya waa xaasaskaygii, afar xaasl iyo saddex xaasl iyo waxaa la midkaa, hadhowna odhanaya dadka waan idinka xaraabaysanayayoo xaasaskaygii ma aha. dee horta been buu sheegay. arrinta labaad meesha ku jirtaana de waa fitno, oo dumar markaa ajanabi ka ah laga yaabo inay ajanabi ka yihiin ayuu meel kula kulmayaayoo isla sawirayaayoo arrintu halkaa dee waaba sii dhaafi kartaa, xumaan baa loo dhaafi karaa. marka been in la sheegaa ah laba kaftamaye mid bannaan maaha. alkadibu xaraam
walow kaana maazixan qofku haba kaftamaya beentu waa xaaraan weeye kaftanka hadduu tarwiic ku jiro argagax gelin iyo ka nixin dadka laga nixinayaa isaguna ma banaana waqtigii nabiga alayh الsalatu wasalaam waxaa dhacday saxaabi hurda alaabtiisii inay saxaabada qaarkood intay qaadeen ay ka qariyeen dabeetana markuu soo toosay uu waayay u doondoonay dabeetana arrintaa uu aada uga xumaaday oo argagax iyo baqa gelisay waliba hubkii uu ku jihaadayay buu ahaa kadibna ay ku qosqosleen tabta imika waxa weeyaan baaraankaa la sheegaya wey marar badan bay taasi dhacdaa rasuulku alayh الsalaatu wasalaam arrinta noocaasiya waa diiday wuxuu yihi laa yaxilu liaxadi an yurawica muslima qofna xalaalu ma aha inuu qof muslima ka nixiyo isagoo kaftan baa uga jeeday oo argagax geliyo mid banaan maaha waxaa dhici karta qofka inay dhibaata gaadho oo maskaxdiisa ay dhibaata gaadho qalbigiisa ay dhibaata ay gaadho wadnuhuba inuu istaago naxdin awgeed ayaa dhici karta dadka in la dhibana ilaahay iyo rasuulkiisu ma ogola diin lislaam ma ogola dadka in la dhibo tan la sheegay ee soomka ku saabsanaa hadday jirto waaba dacwa shaydaaniya weyi waa baaq shaydaan arrinta noocaasi dadka iimaankooda yaa u diray ee ku yidhi dadka iimaankooda idinku fuudhiya oo qiyaasa yaa u diray arrinta noocaasa inta badan dadka waxaa sameeya waxay u badan yihiin dad hunguri wado iyo damac adduunyo oo lacag ku raadinaya arrimaha noocaasa sharikaadka youtube-ka iyo kuwa lacag kaga raadsanaya bay u badan yihin ee dad ujeeda iimaan iyo dacwad iyo uma badna qofkan la leeyahay dad soomka jebisa waxaasaa lagu siinayaa ha laba ciyaaraye ma shar baa loogu yeedhayo baadil mise khayr iyo wanaag shar iyo baadil baa loogu yeedhay bal hadduu jebiye ka waran oo is ihahdo waxani waa run soomkiisii uu jebiye soo noqon mayso in shaqadii shaydaanka dadkaasi inay qabteen markaa cibaadada ciyaartaa laga daayo soom ha noqoto ama salaad ama cibaadad kale waxa weyn ha noqotay adduunye xalaalo ay ka shaqaystaan dadku ha raadsadaan waxa beentaa iyo waxaa tarwiicu ku jiro baqagelin iyo argagaxgelintu iyo cibaadaadka iyo masaa-isha diinta ee lagu ciyaarayo waxyaabahaasi dadku ha ka dhex baxaan oo ilaahayna subxana watacaala wixii ka dhacay ha uga toobad keenaan wallahu aclam nin sarifla ayaan ka amaahday 100 kun oo somalilan shilin ah marka intaanan siinin kadib ayaan ula imi buu yidhi isagoo amaahdii igu leh $100 kadibna $100 baan ku yidhi ii sarif lacagtaadii amaahda ahayd ee adigu lahaydna ka gooso tacaamulka noocaas iyo qaabka aan u tacaamulnay miyuu yahay mid sax ah arrinta noocaasa waxa ay isugu jirtaa dhowr mucaamalada koowaad ee labada qof dhex maraysa waa sarif in doolarkii shilin loogu bedelo mucaamalada labaadna waa deyntii lagu lahaa qofku inuu iska bixiyo uu deyn baxo marka suuro ay sax ku noqon kartaa waa jirtaa oo hadduu yidhaahdo inta aanad sarifin 100 kun shilin aad igu lahayd iyadoo doolara gooso taasi iyadu waa sax weeyi wax dhibina kuma jiro qofka iyadoo shilin lagu leeyahay doolar uu ku deyn bixi karaa waxaa shardi ah uun in lagu sarifo lagu qiimeeyo qiimaha uu sarifkaasi marayo maalinka ama waktigaa la joogo intaan la kala teginna labadaa lacagayo tii qofka lagu lahayo tii uu ku deyn baxayey ee kala duwanaa waa in la kala qaato iyadoo wax la isku leeyahy waa inaan la kala tegin markaa taas iyadoo wax dhibaataa ma laha lakin hadduu leeyahy 100 kun ba ii wada sarif kadibna $100 ba ii wada sarif kadibna 100kaagii kun oo kaasha ka gooso taasi waxay khalkhal gelinaysaa qabdigii hadduu $100 wada sariftay horta $100 oo kaasha oo shilin somalilan ah waa in isaga lagu wareejiyo si uu qabdiga u dhaco kadibna 100 kun shilin isagu waa inuu iska bixiyo
waayo $100 waxaa la rabaa inay horta cash wada noqdaan qofkan sarifanaya in ay ku wada wareegaan markaasuu qabdigii ribada lagaga baaqsanayay uu xaasilaya haddii kale waxaaba dhici karta dee inuu sarifay uun intii waxa weeyaan qofka uu celinayay intii kale aanu sarifinba marka intaa qabdigeedu aanu xaasilinba oonu qofku la wareeginba almuhim sida saxdi waxa weeye inuu yidhaahdo $100 horta ka gooso intii aad igu lahayd adigu inta dollar u bedelato dollar ahaan uga gooso inta ii hadhana ii sarif ama waa inuu yidhaahdo $100 ii sarif itana kaashkii uu la wada wareego kadibna lacagtii shilinka ahayd ee lagu lahaa waa inuu iska bixiyo wallahu aclam